dhammaan marti sharafta qiimaha leh ka soo qayb gashay xafladan aadka loo soo agaasimay waan idin salaameynaa waa Hoode Maxamed Iidaan iyo Cabdifataax Maxamed Yuusuf oo ah lamaanihii koowaad oo iyagoo aragga naafaka nolosha ku midooba soo kale waxaan ahay afhayeenka mu'asasada Nuurul Khayriya oo ah mu'asasad maaragtay u adeegta dadka baahiyaha gaarka qaba sidoo kalena waxaan ahay isku dabaridaha iyo aasaasiga ururka hablaha aragga naafada ka ee Tough Blind Girls oo ah urur u adeega haweenka iyo caruurta aragga naafada ka alxamdulillah waan ku faraxsanahay caawa waan ku faraxsanahay anigii sawjkaygu caawa inaanu ka soo qayb galno munaasabadan xafladda loogu qabanayay sanad guuradii MMTV waanan hambalyeynaa muxuu ahaayay TV-ga MMTV waa TV aan aad ugu xidhnayn oo aan la socon jirnay muuqaaladiisa dad badan baa laga yaabaa inay isweydiiyaan talo lamaanahan araggii baa naafik yihiin sidee ula socon jireen muhiimaddu aragga maaha waa caqliga alxamdulillah boos page-kiisaan ku xidhnayn waxa la wuxuu soo dhigan aan kala socon jirnay caawana farxad bay noo tahay anagoo dalka ku sugan inaanu maaragtay xafladii aanu kala soo qayb galno inta markaan ka yimaado alxamdulillah dad badan oo mas'uuliyiin iyo magaranaysa marti sharaf kalaba leh ayaaba caaw goobtan ka hadashay si qurux badan oo hadashay laakiinse waxaan ka xumahay inta badan waxa la boogaadinayay isla markaana la dhiirigelinaya dhalinyarada laakiinse wali stiil dhalinyaradii aan ka mid ka ahaa ee baahiyaha gaarka qabay cid dhiirigelisa amba uu afku kaga dhaco ma hayo banaan maqal waxaan tabayayna weeyaan waxaan u sheegi lahaa mas'uuliyiinta kala duwan iyo marti sharafta qiimaha leh ee goobtan ku sugan inay yihiin bulshada naafadii bulsho ka tirsan bulshadii kale isla markaana u baahan iyaga qudhoodii in la daraaseeyo oo waqti la siiyo waqtina lala qaato daraasado badan oo sameynay anigii sawjkaygu intii aan wadanka ku sugnayn yacni waxaan mari jirnay suuqyada waaweyn ee maaragtay magaalada Hargeysa annagoo macdaarada geli jirnay oo maaragtay doonayna in magaranaysa aan daraasayno dadka naafada bulshadeenu xaggay ka taagan tahay wax ma u dhiiban karaan ma shaqaalaysiisan karaan amba ha noqoto qaybta saxaafadda iminka in maaragtay badan waxa laga hadlaa had iyo jeer in maaragtay hablaha saxaafadda ku jira ay xuquuqdooda aad u hooseyso xaqna ay u baahan yihiin laakiinse maanta anigu waxaan u hadlayaa dhalinyarada saxaafadda ku jirta kuwa kale shaqada u baahan in mid kastaaba uu u baahan yahay kan kale garab istaag uu u baahan yahay oo la garab galo aad iyo aad bad walaalo mahadsantiin dhammaantiin madax iyo shicibba annagu aad iyo aad baan u taageernaa TV-gan waana TV-yada ugu badan ee maanta aad loo dhagaysto aad baan u hambalyeynaya maxamed iyo cabdishakuur iyo dhammaan tiimkoodaba intaa waxaan ku soo darayaa oo keliya maasayro hadraa uu leeyahay baa ah soo aabba weydiiyo wax mahaystay ma dhalin soo wirsiga nin ladan iyo wirsiga nin ladan iyo soo wirsi kuma korin يعني waxaanu anagu dalkayga uga nimaano shaqada ku haysanay waxbarashada ku haysanay wax walba ku haysanay in aanu dadka indhaha iyo caruurta iyo haweenka taageero madbacadaanu sidana wax walba waanu sidana haddana still xukuumaddu albaabo badan bay naga furlaaday aad iyo aad u mahadsantiin waxaan u soo noqday oo runtii aad aan u jeclaystay inaan caqligiina dib ugu celiyo lamaanaha halkan isa soo taagay Hoode iyo Cabdifataax aayad bay ka turjumayaan waxaad dib u eegtaan gabdho iyo wiilalba Cabdifataax markii mikrofoonka loo dhiibay wuxuu ku sharfay marwadiisa qiyam bayna tusaysaa macna ma sameynayso qofku inuu xoolo haysto qurux leeyahay caafimaad qabo indho leeyahay laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka hibada uu qalbiga ka geliyo baa dhar ah oo hu ah oo aqoon ah allah haydi ciseeyo allah haydi sharfo dhammaan mujtamaca reer Somaliland
waa inay saa u fakeraan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaana ilaahay ka baryayaa inuu kuwa wanaagsan qalbiga ku jira wanaagooda ku jira qalbigooda ku jira dalkeenna inuu ugu naxariisto uguna barwaaqeeyo innagana inaga dhigo bulsho isu naxariisato qalbiyadooda qoyan yihiin